السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع المجيب الدعوات. waxaan dhammaan walaalahayga Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku kala nool Allah subxaana wa tacaala ugu rajaynayaa caafimaad iyo wax walba ay jecel yihiin ama wax walba aynu dhammaanteen jecelnahay oo khayr ah inuu Allah inoo fududeeyo. Mawduucan maanta halkan idinku soo gudbin doono waxa weeye diirad saaridda naftaada iyo faa'iidada ay leedahay inaan diiradda saarno nafteena oo ayna saarin dadka kaleeto. Waxaa jira waqtiyo ay dadku isku dayayaan inay hoos kuu dhigaan, taasina waa markaad u baahan tahay inaad naftaada awood u yeesho aadna diiradda saartid in badan naftaada intii aad dhagaysan lahayd waxay dadka kale leeyihiin. Inaad naftaada diiradda ama xoogga saartid waa mid aad adigu u tahay udub dhaxaad, laakiin qof kasta waxay ka caawinaysaa inaad noloshaada isku dheelitirto, aad samaysatid xuduudo caafimaad qaba, aadna la samaysatid dadka aad jeceshahay. Maxaynu ugu baahannahay inaan nafteena diiradda saarno oo aynu u saari weynay dadka kale? Had iyo jeer waxaa jiri kara xaalado aad dareemi kartid daciifnimo, aadna u baahnayn markaas inaad samayso waxba, yacni caajisnimaad dareemaysaa, daciifnimaad dareemaysaa, inaad wax samaysid ma rabtid. Ha u ogolaanin markaas qofna inuu ku maxkamadeeyo, maxaa yeelay ma jirto qof kaaga aqoon badan naftaada. لأن qofka inuu ku dhaho daciif baa tahay, waxba ma qabsan kartid, kan baa tahay, uu eedeemo kuu soo jeediyo, ha u ogolaanin. Waxaan halkan kugu soo gudbin doonaa biidni rabbilcaalamiin waxyaalo kaa caawinaya inaad naftaada diiradda saarto ee aadan u janjeerin dadka kaleeto, taasoo kuu saamaxaysa inaad xaqiijiso riyooyinkaaga iyo ahdaaftaada iyo yoolashaada nolosha. Midda koowaad ama qodobka koowaad, midda keliya ee aad tahay inaad isbarbar dhigto waa naftaada. Hadafkaagu waa inaad maanta ka fiicnaato sidii aad shalay ahayd. 2, waddada ugu wanaagsan ee aad ku saadaalin karto mustaqbalkaaga waa inaad abuuratid maanta. 3, inta badan oo aad diiradda saarto naftaada waxaa yaraanaysa inaad ku feejignaatid waxa ka dhacaya hareerahaaga. 4, noloshaada waxaa qaabeynaya waxa aad diiradda saartid. 5, noloshaadu waa miraha aad adigu samaysatid ama miraha aad adigu beeratid. Cid aad ku eedeyn karto ma jirto aan naftaada ahayn. Weligaa ha dhihin ma samayn karo waxaas, maxaa yeelay xuduudaha iyo cabsida noloshu badanaa waa dhalanteed. Naftaada waxay ku tusinaysaa xuduudo iyo cabsiyo aanan jirin. Markii aad ku dhaqaaqdid oo wixii aad samaysidna waad dareemaysaa waxaan inay dhalanteed ay ahayd. 7, qof walba oo guulaystay maalin ayay wax walba caqabad ku ahayd, laakiin wuu iska diiday inuu isdhiibo. 8, noloshu ma aha inaad naftaada hesho, noloshu waa inaad adigu qaabaysid, qurxisid oo aad naqshadaysid. 9, isbeddelka dhabta ah ayaa imaanaya markaad adiga naftaada diiradda saarto. 10, waxaad awooddo samee, kuna samee waxa aad haysato iyo halka aad joogto. Waxaa nasiib darro ah inay kumanaan kun oo arday sanad walba jaamacado inooga soo baxaan iyagoo ku andacoonaya inaysan waddanku shaqo lahayn ama ay eedeynayaan meesha ay joogaan. Marka koowaad waxaad adigu awoodid samee, kuna samee waxa aad haysid. Ha u hanqal taagin waxa kaa maqan. Waxa kaa maqan wuu kuu imaanayaa markii aad samaysid waxa aad haysatid, aadna ku qancdid meesha aad joogtid. Isbeddelkuna wuxuu ka imaanayaa adiga isbeddelaya, ma ahe meesha inaad ka baxdo ka tagtid isbeddelku ma keenayso. 11, had iyo jeer xasuusnow diiradaada ayaa go'aamisa xaqiiqdaada. Haddii aad diiradda social media saartid, haddii aad diiradda saartid inaad dadka ku mashquushid, haddii aad diiradda saartid yoolkaaga iyo ahdaaftaada, mid walba xasuusnow inay adigu kuu go'aamin doonto xaqiiqooyinkaaga. 12, dooro inaad naftaada wax walba ka hormariso oo aad mudnaanta koowaad siiso. Ma ahan anaaninimo iyo selfishnimo ee waa lagama maarmaan. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa tiisa daryeelaa tu kale wax u qabta. 13, inta badan ee aad diiradda saarto naftaada ogow inaad mar walba kasii fiicnaanayso.
14 haddii aad naftaada xoogga saarto weligaa ma heli doontid waqti aad ku xukunto dadka kale. 15 jooji muhiimadda aad siinayso waxay dadku kaa aaminsan yihiin, waxay dadku ku leeyihiin. Muhiimadda saar sidaad isku bedeli lahayd una noqon lahayd naftaada mid aad ku qanacsan tahay. Qodobka 16aad ee aan kusoo gabagabaynayo ayaa ah dadka guulaystay weligood kama walwalaan waxay dadka kale samaynayaan. Jooji ka fekerka dadka kale, u fiirso naftaada. Mar walbana naftaada mar walba diiradda koowaad iyo ujeedka koowaad ha kuu ahaado, maya dadka kale. Waxaan idin rajaynayaa dhammaantiin guul iyo gobonnimo aanan dhammaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.